ومقال كمدة مقالة أن وهذه جنة دلك عالمك يكسر هذا صاحبي أنت أن مقالك بلاوين فضلا هدي الجنة كعسبتها وحنك عسنا إن الجنة سبسكرايب إيسر مقالكنا الله يجريسيد مهدسني دلك أن ما أنت كهالدرم ودل أنتيني بدن أنت قانان وأنا دلك كندا يكسر هذا صاحبي كندا ودلك لواد الدنيا وين كتبروشك أو دلك كواد الدنيا وين بدك جود دلكن وحجارية 9.985 مليون أو كيلومتر اسكوريج طبعا دولك كندا مركز القياسي وحلو قياسها 6 ميلود ميل كمدة قارة أفريقيا والدريمي كرتاب حتى دولك كندا أولية أو قارة 6 ميل مركز لوط يقول ميل كمدة يقولك لا كانيا كندا هل ضل أي حدود ولا بدكتها وأنا ضلك مريكنك وأنا حدود كدولات أوين دونيدا حدود كلوضا عند الباحديس وحجارية 8.9 كيلومتر عاصمة دلك كندا ومجالة أوتاوا بس مجالة أوين وانا دتك بدن ومجالة تورنتو وانا عاصمة جبل أونتاريو دلك كندا مجالة لبعض أوين دلك كندا ومجالة مونتريال عاصمة جبل كوبيك وقبل كلية كويا لدلك كندا لغة هذا اللغة الفرنسيسكا إنكستو كندا إيلاد هاي لو اللغات رسمية حسيت اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسيسكا حتى قبل كانوا حلوها هذا اللغة الفرنسيسكا ترى الشعب كونه دلك كندا وإنك بدن 40 مليون أوقف وترى aad u yar marka loo eego baaxadda dalkan oo dalka labaad adduunka ugu weyn ay kaliya ay ku nool yihiin 40 milyan oo qof ma rumaysanaysaa dalkan isaan u weyn in dadka ay kaliya ka degan yihiin 10% oo kaliya marka loo eego guud ahaan dhulka dalka Canada in ka badan 80% shacabka dalka Canada waxay ku nool yihiin xuduudda dalka Mareykanka Canada waxay leedahay xeebta ugu dheer dunida oo dal leeyahay oo xeebta dalka Canada waxay gaaraysaa ilaa 200,000 kiiloomitir Canada waxaa ku yaala 3 badood oo kala duwan badda Atlantic-ga badda Pacific-ga iyo waliba badda Arctic Ocean marka la joogo dalka Canada kaliya 2 gobol ayaa bad la'aan ah waana gobolka Alberta iyo waliba gobolka Saskatchewan kala bar dhulka Canada waxaa ku yaala keymo waana dalka saddexaad ee ugu keymaha badan kadib Ruushka iyo Brazil Canada waxaa ku yaala kala bar harooyinka ku yaala caalamka oo 9% dhulka Canada waa haro xuduudda u dhaxaysa gobolka Ontario oo Canada ah iyo gobolka New York oo Mareykanka ah waxaa dhacaan biyo-dhacyada caanka ah ee loo yaqaan Niagara Falls ee dalxiisayaashu jecel yihiin inay booqdaan Canada waxaa ku yaala 2 ka mid ah harooyinka ugu weyn caalamka oo harada loo yaqaan Great Bear oo ah midda 8aad ee ugu weyn caalamka iyo Great Slave oo ah midda 10aad ee ugu weyn caalamka Canada waxaa ku yaala wadada ugu weyn caalamka oo wadadan waxay ka soo bilaabataa koonfurta dalka ilaa iyo waqooyiga dalka waana wadada ugu weyn u dal leeyahay muuqaalka aan uga hadlaynay dalka Canada intaas ayuu noogu egyahay fadlan ha ilmaamin inaad muuqaalka like garayso channelkana aad subscribe garayso mahadsanid